بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku faraxsanahay anoo ku hadlayo afka golaha dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed inaan maanta joogno shirkii Carte 30 soo dawlad dhisminka Soomaaliya aad inoo farxad gelisay hadaan aan golaha dhalinyarada qaranka Soomaaliya anagoo magaca dhalinyarada Soomaaliya oo matelayno shirka waxay noogu dhigan tahay shir taariikhi oo loogu sheekay jiray taariikhdeena Soomaaliya iyo sidii dhisminka dawladnimada lagu dhisay laakiin marxaati waxaan ka naan maanta aan joogno shirkaas runtii waxay noo ahayd bandhig aan maanta aan rabno inaan dib ugu laabano markaan magaalada Muqdisho ku laabano si aan dhalinyarada taariikhda dib u dhiskay 30 sano soo wareegtay in aan ugu sheekay karno taariikhdaas waxa kale oo halkan aan adeeg aan aad ugu farxnaa uga helnay maadaama wadanka Soomaaliya ka soo tagay wadanka Djibouti aan joogno adeega Salaam Bangi oo runtii isticmaalka bangiga noo fududeeyaan wax walba oo service-ka u baahneen culays anigoo la dareemin oo ku faraxsaneen oo ku qanacsaneen maamulkii dhammaan bangiga ayagana ku maasiin meel walba aan tagnane sidaas oo kale bulshada Soomaaliyeed uga adeegaan waxaan kale aad ugu faraxsanahay dad saaxiibo dhow inaan ahne maadaama aan inta badan samafalka arrimaha khayriga aan ka shaqeeyo Salaam Bangi dhammaan Hormuud iyo waxay Salaam Foundation inta waxay igala shaqeeyaan adeega bulshada Soomaaliyeed oo qeyn arrimaha samafalka mar walba waxay garab taageen 10 sano aan shaqeynay garab iyo gaashaan aan ahayn waan ku faraxsanahay sida meel walba aan joogno garab noogu